بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله sida hadda uu sheegay wasiirka amniga iyo gobernatooraha gobolka ahna duqa magaalada waxa taasoo direena dhamaan eheladii iyo qaraabadii iyo ummadda Soomaaliyeed oo ka dhintay runtii sarkaal haliyay ah oo ka tirsanaa ciidanka booliiska Soomaaliyeed saaka todobadii subaxnimo intaan la gaarin salaada markaan tukanaa aniga isuuka ay dambeysaan wada hadalay wuxuuna ku jiray oo ku maqnaa howlgalka lagu xoreynayo sida hadaba la sheegay khawaarijka looga xoreynayo dalka looga xoreynayo sida hadda uu gobernatooruhu sheegay kuwa kalena waa dhiman doonaan wax loo harayo ama la joogayo ama cid wax yeelaysa maaha ciidanka iyo ummadda Soomaaliyeed waxay go'aansatay xaaladda ay ku jirto xaalad ka liidata oo maanta ay gaari lahaayeen malaha marka ceelasha laga gubay wadooyinka la kala xiray marka waxa dawladda iyo shacabka ciidamadu go'aansadeen cid kasta oo dhimanaysa kolba waa la dhiman lahaa sidaan in lagu dhinto oo la iska dulqaado muxuu ahaa cadawgan la iska dulqaado waana loo midaysan yahay inta kale ciidanka booliiska iyo ciidanka militariga iyo ciidamada kala duwan iyo inta amniga muxuu ahaa ku shaqo leh waxay u diyaar yihiin inay wadadu mare ay maraan waxaad ogtihiin waxa naga dhintay dad badan oo qaali ah oo iyagu ay dileen oo aad u tiro badan isna kuwii un buu la mid yahay laakiin waxa go'aan ku yahay inay dib dambe ayaan ugu dhex jirin ummadda Soomaaliyeed meel la iska saaro intaasan muxuu ahaa sida hadda madaxdu sheegtay aanu tacsida ugu direynaa ehelka iyo qaraabada iyo ciidanka booliiska iyo dhamaan ummadda Soomaaliyeed. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.